banaadir soo dhawaada. waxaa jirto qoraallo lagu soo shaaciyey maaragtay baraha bulshada bishii November oo yani sanadkan inoo soo baxday ku qoran. marka warqadaasna sida maaragtay meesha aan ka fahmi waxay sameeyey Cusmaan Buwe Roble, wuxuuna warqadaas u qortay ra-iisul wasaare Roble. marka mawduucaasaan insha allah rabaa inaan idinkala hadlo insha allah si maaragtay oo deganaan rabaa inaan u sheego inaan maaragtay mawduucan aan boobsiiyo ma rabi ama hadalkayga aan boobsiiyo ma rabi. marka warqadda maaragtay ra-iisul wasaare Roble uu qortay dacwo waaye. wuxuu sheeganaa in kursi uu ka maqan yahay uu asaga kasoo qaatay Embakasi Kenya. Embakasi Kenya waxaa lagu qabtay election 2004 meeshii maaragtay lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf. marka waqtigaas uu maaragtay saami kasoo qaatay awood qaybsi 4.5 kursi baarlamaan oo meesha kasoo helay. marka wuxuu yani warqadiisan oo ku codsanaya oo bisha 9 November soo baxday wuxuu ku codsanayaa kursiga sumadiisu tahay 266 waxaa iskale Tolweyne iskaashato. waxaan diyaar u ahay inaan helo kursigii aan kala imid Embakasi. yani hadalka meesha uu kusoo qoray hadalkaas waay. marka warqadaas uu qoray xoogaa aniga waxaa iga muuqato isburina igaga muuqato mana ilaha maaragtay si ka fiirsasho leh in loo diyaariyo warqadaas. nin marxuum uu sheegay ayaa jiro oo Embakasi kursi kasoo qaatay. marka asaga iyo ninkaas labadood kee kasoo qaatay kursiga Embakasi oo yani iska leedahay Tolweyne iskaashato, ilaan hal kursi waay. ninkaasna wuu tilmaamay asagana wuxuu leeyahay anaa saami kasoo qaatay, kursigana hal waay. kursiga Tolweyne iskaashato hal waay, yaa kasoo qaatay. marka meesha isburin weynaa ka muuqato. warqadaasna ra-iisul wasaare ku socotaa, qof ra-iisul wasaare ku socotaa. Cusmaan Buwe horta aniga baraha bulshada aan ku bartay. waxaan ku arkay qolalka WhatsApp-yada oo banaadiriga meelahaasoo maaragtay yani ka hadlaa meelahaasoo maaragtay barnaamijyadiisa siyaasadeed meelahaasoo ka sheegaa. marka aqoon kale oo gaar ah runtii naga dhexeysa ma jirto intaasaan ahayn. marka laakiin saan yani la socdaan ogahay Cusmaan Buwe kursi wuxuu kasoo qaatay Jabuuti, Embakasi maaha. warqadda suu asaga uu ku sheeganayo runtii run ma ah, beenuu sheegayaa. Jabuuti oo kursi kasoo qaatay 2008 waxaa waaye heshiisaa dhacay, dagaalaa jiray, hubaa laysku qaatay, dagaal xun oo qaraar ah ka dhacay dowladda dhexdeed iyo isbahaysi markaa Sheekh Shariif uu ku jiro oo la dhihi jiray isbahaysigii dib u xoreynta. marka calaa kulli xaal waa tii maaragtay 225 oo kursi baarlamaan ay jireen intaan maaragtay heshiiskan oo Jabuuti uusan dhicin 2004 already 225 kursi oo baarlamaana jirtay. marka heshiiskii Jabuuti 225 kursi kale oo dheeraada lagu daray baarlamaanka. marka 6 kursi waxay ahaayeen banaadiri ahaayeen. marka mid ka mid ah asagaa la siiyey, asagaa ku qoranayo. marka xilligoodiina maaragtay wuxuu dhammaaday
kala guurkii sheekh shariif 2012 2012 ka bacdi waxaa baarlamaanka kusoo haray 275tii hore aa kusoo hartay baarlamaanka. marka 275taas oo horena waxaa dib usoo xulayeen usoo qoraayeen oday dhaqan oo la dhihi jiray oday dhaqanka 135. marka banaadir laba ugu jirtay, labadaasni waxay ahaayeen buumuude iyo cusmaan yarow. marka reer banaadir waxaa la siiyey saami oo 6 kursi ah, 3na buumuuda soo qoraay, 3na cusmaan yarow soo qoraay. 3 kasto hal ka mid ah waa inay ahaataa dumar. marka 2 dumaraa meesha kasoo baxay, waxayna noqdeen biibi khaliif, xildhibaan biibi khaliif iyo xildhibaan fahma ay noqdeen. marka 2012 waxaa dhacay intii maaragtay aan la dooranin madaxweyneyaasha iyo tartamin. sheekh shariif wuxuu ballanqaadi u sameeyey reer banaadir, wuxuuna ka qaatay hal kursi, 6 kursi hal kursi uu ka qaatay. laakiin kursigaas waxaa dacwo ka keenay reer iskaashata, dacwo ka keenay. kursigoodii ayaa waxaa laga siiyey nin oo shiikaal ah oo markaas sheekh shariif uu ahaa sodo. taasaa jirto. laakiin waxaa dhacday maaragtay sheekh shariif in lagu guuleysto 2012 oo markaa ballanqaadyadii uu sameeyeyna maaragtay meesha ay ku baaba-een. marka dacwadii waa lasoo cusbooneysiiyey, dacwadii tolweyne iskaashato waa lasoo cusbooneysiiyey. 2016 lasoo cusbooneysiiyey. laakiin tii 2012 yani faylkiisa waxaa laga helaa baarlamaanka laga helaa, waa la archive gareeyey. dacwo waxay ka gudbiyeen, kursigaasay ka gudbiyeen. marka 2016 markay soo cusbooneysiinayeen, yani waxay sheegteen kursigood ama dacwadu waxay kusoo rogeen reer qalmasho way kusoo rogeen. dacwadii hore qabiilay ahayd, dacwadan dambene dacwadii 2012 qabiil ahayd, dacwada kale 2016 qabiil kale way. marka qalmasho way kusoo rogeen. waa kursi maaragtay hadda xildhibaan bibi ay ku fadhiso. marka kursigoodii oo ninka shiikaalka laga siiyey 2016 xamar waaba laga wareejiyey, koonfur galbeeda loo wareejiyey. marka ayakan waxaa kusii adkaatay inay maaragtay dabagalaan, kursigaas inay dabagalaan. marka saas awgeed qalmashooy kusoo leexiyeen, taasaa la fududaatay. marka haddana waxaa yaab leh dacwadii qalmashooda 2 nooc ay noqotay. koox waxaa jirta oo shariif jaag uu wato oo leh kursiga uu naga dhexeeya anakii qalmasho waa in nala tartansiiyaa markii doorashooyinka lasoo gaaro. dacwada kalena waxaa waaye tan iskaashato oo maaragtay uu wato cusmaan buwe wato. yani wuxuu leeyahay kursigan laga dhacay kursigan way sumadiisa 266 aa la dhahaa. qalmasho waana ku fadhiyaan. marka yani kooxahaas labada dacwo kala nooca wato waxay kala sheegtaan moorsho iyo iskaashatay kala sheegtaan. laakiin
hal beelaa jirto oo la dhahayo moorsho iskaashato. anaka reer banaadir ma naqaano moorsho iyo iskaashato ma naqaano. moorsho iyo iskaashato ayakaa kala samaystay. shariif jaagna moorsho samaystay, yani moorsho ku qaraabtaa macnaha saas waay. cusmaan buuna wuxuu ku qaraabtaa iskaashato ku qaraabtaa. markii yacni lasoo gaaro xilliga kala guurka lasoo gaaro, halkaas yacni beel labay noqonayn, marka kalena hal way. macnaha saas way. marka arrintan maaragtay ay wadaan shariif jaag iyo cusmaan buuwe, yani waa iska muuqataa inay ka mid yihiin maaragtay labadood kooxaha raba inay carqaladeeyaan doorashooyinka. waxayna maaragtay rabaan labadood ama yani rabaan inay keenaan muran beeleed ay rabaan inay keenaan. muran beeleed ay rabaan inay keenaan. muran beeleedkaas wuxuu sababi karaa dib u dhac xagga doorashooyinka, khaasatan doorashooyinka banaadiriga. wuxuu sii xoojin karaa, wuu sii xoojinaa musuq maasuq, wuu sii xoojinaa. hufnaan wax la dhahay ma jiri doonto. meesha waxaa ka dhacaysa kalsooni darra ka dhacayso. marka calaa kulli xaal warqadaas waa soo sheergareeyey. waxaad ka helaysiin maaragtay profile pagekaygaad ka helaysiin, waad soo download garey kartiin oo akhri kartiin insha allah. marka profile pagekeygana adresskiisa shaashada hoos aa ka arki kartiin insha allah. marka kheyran idin dhaafay insha allah. arrintaas la socda inaan idinla socodsiyaan aan maaragtay aan niyeystay. marka kheyr insha allah. baaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum.